kulan wacan daawadayaal halkan waa dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid ah isdiiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha oo maanta si toos ah u bilaabanaysa xilli la soo bandhigay shuruudaha laga rabo musharaxiinta gudoomiyaha aqalka sare oo digniin u diray taliyaasha ciidamada iyo baarlamaanka Puntland oo soo farageliyay khilaafka Siciidani iyo Karash ka dhaxeeya waa 8 bisha May sanadka 2022 daawadayaal qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaan nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada weela wararkii warbixinada 24 gazacaan u baahino aragtidiina halkaas nagu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana wayna muhiim daawadayaal haatan nagu soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan isdiiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ayaa maanta si toos ah u bilaabanaysa xilli la soo bandhigay shuruudaha laga rabo musharaxiinta waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya maanta si rasmi ah uga bilaabanaysa isdiiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaana shaaciyeen jadwalka la xiriira qaabka ay ku soconayso howsha la xiriirta doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo loo madalsan yahay 15 bisha May jadwal ay soo saareen guddigaas ayaana lagu shaaciyay goobta lagu diiwaangelinayo musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo koontada lagu shubayo lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ayaana soo saaray warqad ay ku shaaciyeen in isdiiwaangelinta musharaxiinta ay maanta bilaaban doonto 9 barqanimo kana bilaabanaysa xarunta aqalka sare sidoo kale warqadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay tilmaamaha koontada lagu shubayo lacagta isdiiwaangelinta musharaxiinta oo gaaraysa $40,000 waana bangiga dhexe ee dowladda guddiga ayaana soo saareen habraaca iyo shuruudaha laga rabo musharaxiinta xilka madaxweynaha waxayna shuruudahaasi ka kooban yihiin 9 qodob kuwaasi oo kala ah in warqada aqoonsiga CID-da ama baasaboorka laga rabo warqada codsiga musharaxnimo warqada soo jeedinta musharaxa qodobkan ayaana laga rabaa musharax kasta inuu soo saxiixo form 20 xildhibaan kastana waa loo ogol yahay inuu 3 musharax u saxiixo warqada codeynta buuxinta shuruudaha musharaxnimo 400 nuqul oo barnaamijkiisa doorasho oo daabacan iyo nuqul elektaroonig ka hor maalinta hadal jeedinta taariikh nololeedkiisa musharaxa 2 sawir oo teesra warqada cadeynta lacag qabashada warqada aqbalaada iyo hoggaansamida habraacyada iyo natiijada doorashada ayaa kamid ah shuruudaha lagu xiray musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha dhinaca kale Muqdisho oo ay inta badan ku sugan yihiin musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynimada ee dalka ayaa waxaa ka socda kulamo iyo shirar gooni oo u dhaxeeya musharaxiinta iyo xildhibaanada labada aqal waxaa bilowday shukaaminta xildhibaanada iyo iibsiga codadka iyadoo la filayo in codadka xildhibaanada ay noqdaan kuwii ugu qaalisan ebed oo ay gaari karaan ilaa $100,000 halkiiba cod si kastaba musharaxiinta qaar ayaa ka cagajiidaya inay lacag bixiyaan sababtoo ah waxaan hubneen in xildhibaanka lacagta qaadanayo uu codkiisa siin doono sida marar badanba hore u dhacday oo cashar laga bartay 8 ilaa 10 bisha ayaa la filayaa in guddiga doorashada madaxweynaha ay musharaxiintu soo dhameystiraan shuruudaha laga raban ee siiyaan shahaadooyinkooda 11 ilaa 12 bisha ayaa sidoo kale la dhageysan doonaa khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya si kastaba doorashada madaxweynaha ayaa la qabanayaa 15 bisha May oo sidoo kale maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobonimo doonka Israel ku beegan geesta kalena gudoomiyaha aqalka sare digniin ayuu u diray taliyaasha ciidamada gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Soomaaliya senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidanka xooga dalka General Odawa Yusuf Raag iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wararka hordhaca ee laga helay kulankaas ayaana sheegaya in kulankan oo daqiiqada kooban socday diiradda lagu saaray adkeynta sugidda amniga doorashada iyo midda guud ee dalka Cabdi Xaashi ayaana saraakiishan ku ammaanay kaalinta ay ka qaadanayaan sugidda amniga guud ahaanba dalka wuxuuna si gaara isku dultaagay doorkii ay ku lahaayeen in si nabad ah ay ku soo idlaato doorashadii guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya General Odawa iyo General Xijaar ayaana gudoomiyaha aqalka sare u balan qaadeen in saraakiishiisa iyo askarta ciidamada militariga iyo booliska aysan ku milmin arrimaha siyaasadda oo ay si isku mid ah ugu adeegi doonaan musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka si kastaba kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkan iyo bilowga kan xigaba ay jirto mashquulkii ugu xooganaa oo la xiriira dhanka doorashada
waa hagaagi daawadayaal iminkana waxaanu eegaynaa baarlamanka Puntland ayaa soo farageliyay khilaafka Saciid Dani iyo Karash. baarlamanka dowlad goboleedka Puntland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah waxay uga hadleen khilaafka ka dhex dilaacay madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan Karash, kaas oo bilowday markii uu Dani ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka Puntland Abukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa rajo xumo ka muujiyay dadaalo lagu doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhexeeya labada mas'uul oo la rumaysan yahay inay ku lug leeyihiin gacmo kale. Abukaate Cabdicasiis ayaana sheegay in Dani iyo Karash labada baqadka taleefanka ku wada hadleen kana aqbaleen in baarlamanku bilaabo dadaalo lagu xalinayo khilaafka iyadoo loo marayo hab waafaqsan sharciga iyo midka siyaasadeedba. gudoomiye ku-xigeenka ayaana madaxweyne ku-xigeenka Puntland ku amaanay inuu xagal daaciyay dadaaladii socday ee uu waday baarlamanka. wuxuu ku eedeeyay inuu qaaday tallaabooyin uu xilka kaga qaaday 3 ka mid ah wasiirada Puntland iyadoo uu wada hadal ku socdo, taas oo uu sheegay inay fashilisay howshii ay wadeen. ballantu waxay ahayd in Sabtida aan iskugu imaano Garowe si aan hore ugu sii wadno wada hadallada aan dooneyno inaan iskugu soo dhaweyno labada mas'uul. runtii waxaad moodaa wareegtadii ka soo baxday madaxweyne ku-xigeenka inay xagal daacisay waantii aan dhinaca ka ahayn, ayuu yiri Abukaate Cabdicasiis. hadalka baarlamanka ayaana ku soo beegmaya iyadoo haatan magaalada Boosaaso ay ka taagan yihiin xiisado ka dhashay xilka qaadista uu Axmed Karash sameeyay iyadoo ciidamo badan lagu daadgureeyay xarumaha dooliga ee Boosaaso si looga hortago inay dhaqan gasho tallaabooyinka Axmed Karash uu qaaday. dhinacyo kala duwan oo ku kacsan Dani ayaana la sheegaya inay Karash u adeegsanayaan si uu u dhaawaco musharaxnimada Saciid Dani, waxayna xoogaha sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenku uu wali ku guuleysan laayahay inuu gacanta ku dhigo maamulka Puntland. waxyaabaha Saciid Dani ka saacidaya inaan wali lagala wareegin awoodda maamulka Puntland ayaa waxaa ka mid ah inuu gacanta ku hayo gudoonka baarlamanka maamulkaas oo qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho si ay uga qayb qaataan ololihiisa. doorashada Soomaaliya ayaa waxaa ka harsan wax ka yar 10 maalmood, wuxuuna Saciid Dani qorsheenayaa inuu dib ugu laabto Garowe haddii uu waayo kursiga madaxweynenimo ee Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanageynta warkii oo aad kala socoteen janalka YouTube-ka dalka TV Media, fadlan daawada haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u hela wararkii warbixinada 24 saac aan u baahino. aragtidiinana halka hoose noogu reeba, muuqaalkana sii sheer gareeya, laagtiinana waa inoo muhiim daawadayaal. waana ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.